waxaad tihiin iminka kooban tihiin ismadii gobolka Cayn waxaan ogsoonahay xaaladda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ku jiraan iminka inay ka duwan tahay xaaladii hore ay ku jireen su'aasheeda koowaad waxay tahay mowqifkiina ka ismaahan muxuu yahay looga hadlo waa wada haysaan waxay taagan tahay horta waxaanu jecelahay dhaqan baanu nahay Soomaalidu inay nabadgelyo ku wada noolaato wixii gardarra ah iyo gardarrada ka noqdaan sidaas baanu ka qabnaa goboladaas waa beesha deegaankeedii ilaa intii ilaahay abuuray bay deganayd cidda kuma xadgudbayaan in cidda ku soo xadgudbana ma ogolaanayaan sidaasaan ka qaba ma jiraa khilaaf dhexdiina ah mise waad u midaysantihiin arrinta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn khilaafka isbada lagu sheegay dadka u baashagay isbada kuma dhex jiro ma dhexyaan waa isku mid kii qura hadlay ku wada raacsan yihiin ma jiro khilaaf u dhaxeeya isku mabda baanu nahay midkaasna wada taagana jiraan maamulka Soomaaliland dhowr jeer horena waa dhawaaqdeen oo waa hadasheen halka ma la oran karaa ismadu in badan bay ku celceliyeen oo hadleen hal kale oo hadal way waayeen oo ay sheegaan halkaanu sheegaynaa wixii horena waa duuban yihiin waxaana markii hore waxaan ku yidhi cidii gardarro wadani gardarrada ka baxdo waxaana weeye deegaanka beeshu leedahay ee xadkiisa la yaqaan ee walaygu ku noolaayeen cidda ku soo xadgudubtay inay dalkooda iyo dadkooda waa nabadgelyo u horseedaan waxyaabaha hadda dhibaatooyinkaana say ku joogsadaan inay ku noqdaan deegaankoodii oo ciidamada kala baxaan arrinta tan aad maantana weydiinayso arrin maanta maantoo kale wax laysma weydiiyo maantoo kale waxba laysma weydiiyo yani xaalad dagaal baa lagu jiraa waa xaaladaysan yahay waddanku laakiin walaaladayo waxaanu leenahay mar walba waxaanu leenahay inooma fiicna duulaanku ehel baynu nahay walaalaynu nahay oo geeridiina iyo taayada midna dani kuma jirto islaamna waynu nahay dadkeenna xabaddu laynayso dani kuma jirto waxaanu leenahay ciidamada naga celiya oo naga celiyo dib nuga rara hadday dhici weydo dee wixii ilaahay gartay noqonaysaa laakiin nin waliba waa fahmaya waxay noqonayso su-aasheeda ugu dambaysa waxay tahay waxaynu ogsoonnahay oo aynu samaysanay maamul iyo nidaam dadka deegaanku inay samaystaan maamulkii iyo nidaamkii waxaynu ogsoonnahay inuu meesha ka baxay isagu nidaamkii aynu lahayn ama maamulkii dadka deegaanka miyaa la waayay Puntland iyo Somaliland nidaam aan ahayn in loo jeeyo baryahanba waa la waday in dadkaasi maamul u gaara samaysto laakiin dee duruufaha ka horeeya wuxuu ku samaysan lahaa waa waxa uu ka cabanaya ee tilmaamayo ee la diidan yahay saasuu ku samaysan lahaa maamul buu la samaysanayaa waana u diyaar inta isqaadan kartaa inay samaysato oo xigtaa Soomaaliland qaarkeed lagala soo raacaanba hadday diyaar u yihiin halkana mabda ayagu waa inaan maamul samaysano ka madax bannaan mid kasta Puntlandna ma xanibi karto iminkase dee duruuf kale la taagan yahay waqtigeedii baa la sugayaa in la gaadho waxaan kaloo ka hadlayaa anigu hadalku ma ku dhamaatay anigu waxaan ka hadlayaa boqorka buurmadow ee la xidhay buurmadow soo laabanaa buurmadow boqor wana soo laabanaa xadhigiisa waa la sii daayay su-aashiida kale waxay tahay waxaa dhacday oo lagu baaqay in ismadu ay shirayaan oo ilaa iyo muddo dheer oo hal sano ka badan iminka ay soo jiitamaysay shir ismadu ay yeelanayaan shirkii ismadu ay ku ballansanaayeen maxaa ku dhacay xaguusa ka dhacay taa anigu hadda meel gooniyaa joogay ismada wada joogada iga waroor meesha waxbariyeen wufuud u imanaysay yaan u daynayaa qodobka su-aashaan la weydiiyo garaadka ismadu runtii way ku baaqayaan waana jecel yihiin inay shiraan caqabada hortaagan maxay tahay waxa caqabada hortaagan waa ta wadanka ka taagan weey ismadu ma aha malaa'ig iyo dadka ka aqli badan ma aha dad awood leh oo iyagu wax taagan oo carqalada iyagu bedeli kara iyagu waa shirgudoon waxay ku dhawaaqaana waxa weeye in dad kale fuliyo weey iyagu ma fulin maaha waa gudoon
fulintu meesha kama baxayso oo waad ogtiin waddanka waxa u taliya isimo arqaladaha jira unbaa hortaagane isimadu ma diidana inay shiraan waana wada shiraan markay doonaan waan gartay ma jirtaa xilli cayiman oo iminka ilan kolkii hore waa la cayimay waqti waa lagu cayimay buuhooda lagu qabto xilli cayiman oo iminka la odhanayo xilligaas uu shir ku dhacaya ma jira waa jira waa marka laasaanood la xoreeyay wey shirka horeeyo isma qabsanayaan ma jiro iyo shir dhulbaanta leeyo la qabanayo marka Puntland qabsato waa marka laasaanood laga saaro Somaliland Puntland gacanta ku dhigto cid kasta gacanta ku dhigto aad u mahadsantahay